أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daawadayaal kusoo dhawaada channelka aqoon official haddii aad channelka cusub tahay subscribe saar muuqaalkan la garee mahadsanidin la socod wanaagsan qeybeeni xiga waxaan soo gudbinaynaa imtixaanka maadada waxaan ku jirnaa weli xalinta imtixaankii dowladda fasalka 8aad 2023 waxaan xalinaynaa maadada Soomaaliga qeybtii labaad iyo qeybtii saddexaad la socod wanaagsan daawadayaal haddii aan fiirino qeybtii labaad naxwe su-aasha 11aad naxwaha af Soomaaliga waxaa loo qeybiyaa 4 qeybood 2 qeybood 3 qeybood 7 qeybood haddaba jawaabta saxda aan ka doornayno xarafka ja 3 qeybood su-aasha ku xigta 12aad qeybaha erey weydiimaha af Soomaaligu waa 3 qeybood 7 qeybood 4 qeybood 5 qeybood haddaba jawaabta saxda aan ka doornayno waa xarafka xa 5 qeybood su-aasha ku xigta 13aad haddii aan fiirino goobageli weedha uu ku jiro magacyaalka wadarta ah idinku waad joogtaan adigu waad joogtaa isagu wuu joogaa iyadu way joogtaa haddaba jawaabta saxda aan ka doornayno waa xarafka ba idinku waad joogtaan su-aasha 14aad haddii aan fiirino goobageli meeleeyaha iyo ama ku waayo haddaba jawaabta saxda aan ka doornayno waa xarafka ja ku ayaan ka doornaynaa haddii aan fiirino su-aasha ku xigta 15aad sifatayeed waxaa loo adeegsadaa meeleeyaha falka sifada magacyaalka haddaba jawaabta saxda aan ka doornayno waa xarafka xa magacyaalka haddii aan fiirino qeybta saddexaad suugaan qeybta saddexaad haddii aan fiirino su-aasha 16aad goobageli weedha tilmaamaysa fal tagay ba waxa aan tagayaa suuqa ta waxa aan tagi doonaa suuqa ja waxa aan tagay suuqa waxa aan tagaa suuqa haddaba jawaabta saxda ah ee aan ka doornayno waa xarafka ja oo ah waxa aan tagay suuqa haddii aan fiirino qeybta ku xigta su-aasha 17aad goobageli weedha falgudbaha ah Axmed kursi ayuu qaaday Axmed wuu seexday Axmed baa tagay Axmed wuu tukaday haddaba jawaabta saxda aan ka doornayno waa xarafka ba Axmed kursi ayuu qaaday su-aasha ku xigta 18aad ereyga idinka waa magacyaal wadar ah kalidiisuna waxa uu noqonayaa inaga iyada adiga isaga haddaba jawaabta saxda ah waa xarafka ja adiga su-aasha 19aad haddii aan fiirino goobageli weedha astaamaha qoraalka saxan oo ah jawaabta saxda aan ka doornayno waa qor cashirka una tir macalinka oo xarafka ba ku xusan ah haddii aan fiirino su-aasha 20aad goobageli weedha ku jirto fal ahaanshuhu Axmed iyo macalinkiisa Axmed waa macalin Axmed macalinka Axmed haddaba jawaabta saxda ah waa xarafka ta Axmed waa macalin haddii aan fiirino su-aasha ku xigta 21aad ereyga olol waxaa la macno ah ba ci ta reen ja ta xa doobin haddaba jawaabta saxda aan ka doornayno waa xarafka ba ci su-aasha 22aad xawda kuu jaray waxaa la macno ah ba oo ah kuu qalay jawaabta saxda aan ka doornayno waa xarafka ba su-aasha 23aad ereyga irmaan lidkiisu waa rimay oo xarafka ba ah rimay oo xarafka ba ah ayaan ka doornaynaa haddii aan fiirino su-aasha 24aad abwaan Ismaaciil Mire gabigiisii haysxakabin meel waxa uu u tiriyey wiil uu u yahay abti awoowe adeer aabe haddaba jawaabta saxda ah aan ka doornayno waa xarafka xa oo ah aabe su-aasha ku xigta 25aad gabayga duni waxaa tiriyey abwaan xaaji aadan axmed afqalooc oo ku xusan tahay xarafka ja ayaan ka doornaynaa oo jawaabta saxda ah su-aasha ku xigta 26aad faraskii sayid maxamed cabdulle xasan waxaa lagu magacaabi jiray xarafka aan ka doornayno waa ta xiin faniin ayaan ka doornaynaa oo xarafka ta ah waana jawaabta saxda ah su-aasha ku xigta 27aad maansada Soomaali su-aasha 27aad maansada Soomaali baan ahay waxa uu abwaanka halkudhig ugu dhigay ba sanku neeflo ma ogoli ta kama yeelo seetada ja nin isigay ma nabadgalo xa Soomaali baan ahay haddaba jawaabta saxda ah ayaan ka doornayno xarafka xa Soomaali baan ahay
Su'aasha ku xigta 28aad sheeg tuduca tilmaamaya suugaantu inay ka mid tahay weedha lagu keydiyo taariikhda. Haddaba jawaabta saxda ah ee aan ka dooranayno waa xarafka ta. Suugaantu waa qayb ka mid ah qalabka taariikhda, waana jawaabta saxda ah xarafka ta. Haddii aan fiirino su'aasha 29aad ereyga sokordax waxaa la macno ah sarbeeb oo ah jawaabta saxda ah xarafka ba. Su'aasha 30aad haddii aan fiirino waa cudurka qaybaha bulshada qaranku weeyne. Abwaanku tixdan wuxuu kaga hadlayaa waxbarashada, dagaalada, qabyaaladda, abaaraha. Jawaabta saxda ah aan ka dooranayno waa xarafka ja oo qabyaaladda ah. Waxaan halkaa kusoo gabagabeyneynaa qaybteenii labaad iyo qaybteenii saddexaad. Waa ku mahadsantihiin daawashadan. Fadlan hadduu muuqaalkan kusoo gaaray like garee, saaxiibadaada la wadaag. Asxaabta ee halkan inaga daawanaysa waxaa halkan aan soo dhigayaa TikTok-gayga. Waxaan rajeynayaa inay soo follow gareysaan, isbeddel badanna aad igu sameysaan dhanka follow-ga. Mahadsanidin. From YouTube isoo qora mahadsanidin.